isimo waxgarad qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa ka qayb galay xarika jarka shirkadda korontada iyo biyaha Ilays oo laga daafuray degmada Xarfo ee gobolka Mudug. ugu horeyn dadka halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa injineer Cismaan Xasan Warsame Awdoon oo ah maamulaha shirkadda Ilays. baahida magaalada iyo ehelka dibka haysta markaan aragnay ayaan waxaan dooranay in aanu fikradan keeno dadka u faa'iideeyo anaguna aan mustaqbalka aanu ahaato wax dhacay asad ama maaragtay business laakiin waxa ugu horeeyo oo aan muhiimada siinayna waxay ahayd magaaladan oo aad u dansaneyd oo dhinac walba wax ka qaldanayeen waxaan ka qaban karnaa inaan ka qabanno alxamdulillah ilaahay waan ugu guuleeyay haddana hawsha halkaasaan soo gaarsiinay biyuhu waa socdaan korontadu waa 24 saac biyaha waxaan rajaynaynaa inay magaalada oo dhan wada gaadho dadku inay biyo nadiif helaan waxyaalahan cudurrada iyo dhibaatada keenay waxaa ka mid ah biyaha qaladka la cabayo biyahaas in laga kaaftoomo ayaan rajaynaynaa. Nabadoon Xasan Macalin Daahir ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. innaga marka hadii la qadiyadaas oo la maalgeliyay oo waxbarashadii iyo biyihii iyo korontadii leena ka maalgeliyay waxaan rabnaa fahamnaa innagu inaan wax soo celinno oo maxaan soo celinaa inaan soo celin ka faa'iideyno oo korontada gashanno oo biyaha isticmaalno nadiifka oo iska dayno weerka maraa maanta qiyaasay injineerku biyaha ceelkan cabiray 2200 bayna wada cusbada ku jirtaa wuxuu soo qoray jiiska lagu cabiray ma la cabi karo marka inaan cabnaa wax sahlan weeye biyahaas oo sifaysan wax sahlan weeye nolosha oo ku shahay arinta kale bini'aadanku hadduu ilaahay abuuro nafaqo u baahan yahay nolosha biyaha iyo cunada ka sokow waxa ku yahay koronto weeye hadda caafimaad u baahan tahay koronto ka horeysa hadda waxbarashada koronto ka horeysa u baahan tahay hadda rabtid maxaan ku raadaa كوريمان وحبات كورنتو كورتو الله يوكل ماشي إن شاء الله وحنا لأنه ما العلي ضدك يا بابل كان لها عن كفاية لسنه حدا محمد بابا وكان عسته مقالة كاملة أي يسوون هالكاس هذا الكجيدي حرفه وحقيمين كرقفك هري وتشوي همين كي عثمان وسيد أي بالله حرفه وشذي يهمين كي كوري وحب بالعدة يوم قال كذا ودحي أيوه قفك استوحى كتشوي دريم كره مركز meel kale kaga soo socotid ama markaad gudaheeda joogtid waxaan dhihi karnaa farqiga u dhaxeeyo un baynu ka dheehan karnaa waxay soo kordhisay Ilays waxa la dhihi karay markii 6 saac korontadii oo shaqeynaysa kabanigii hore ay dinto xarfa muuqaalkii ay lahayd qof kasta uu garanaya waxaan aad ugu farxaa buundo ku taalay magaalada oo aad dadka waayeelka habeenka uga dhici jireen oo magaalada bartankeeda ahayd hoteelka Golden Irtiisa ayaan waxaan maraa hadda xilliyada habeenkii laba baal ayaa geesaha ka oo leerkoodu la soo jeediyay bundadaas qof indhihiisa inaba hal leekaatay wax ka arkaya uu dareemayaa meeshaas boosho ku jira iyo godka ku jira awal waxa loo yahay dad badan oo reer Xarfo waayeel inay ka dhaceen. Nabadoon Cabbaas oo kamid ah waxgaradka degmada Xarfo ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. dadweynaha reer Xarfo ay yihiinba dadweynaha deegaanka in ay baraarugaan una arkaan waxay iyagu leeyihiin Suldaan Cabdiqani Qorane Maxamed oo kamid ah ka qaybgalayaashii ayaa isaguna halkaasi bogaadin ka diray markaan fiirino qalabka casriga ah ee meesha la keenay markaynu fiirino shaqooyinka la qabtay laga sheekeeyay maanta oo dhan ilaa iyo wadooyinkii oo Ilays iyo dal loo yeelo markaynu eegno siday u agaasiman yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada shirkadda iyo uniformkooda iyo siday uga muuqatay inay shaqada u tababaran yihiin waxaan leenahay aqoon baa soo kordhay ilbaxnimo baa soo kordhay waana bishaaro iyo guul soo hoyatay reer Xarfo oo idil iyo deegaanada ku xeeran waxaana alla ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu dhamaystir ka dhigo korontadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan maalinka maanta ah noloshaynu noolna shirkadda korontada iyo biyaha Ilays ayaa wax badan ka bedeshay habsami socodka horumarka dhanka bulshada ee ka jiray degmada Xarfo ee gobolka Mudug wala shirkadii oo horeysay ay ku diirsadaan bulshada degmada Xarfo taasi oo siisay koronto 24 saac iyo biyo macaan oo nadiif ah. Cabdullaahi Yare TV-ga idaacada caalamiga SBC magaalada Galkacyo.